waa kuwee shanta difaac ee ugu fiican kubadda cagta. Nambarka koowaad Virgil van Dijk. Van Dijk waa xirfadle kubadda cagta ah oo caan ah oo u ciyaara Liverpool iyo xulka qaranka Netherlands. Wuxuu ku guuleystay abaalmarino badan sida UEFA Men's Player of the Year. waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu Van Dijk soo qabtay waxaa ka mid ahaa soo afjaridda abaarta 30 sano ee Liverpool ku heshay horyaalka iyo inuu Holland ku hogaamiyay finaalka UEFA National League. waxa uu dhashay 1991 waxa uu ka soo gudbay caqabadihii ka hor yimid noloshiisii iyo yaraantiisii si uu u noqdo xiddig kubadda cagta ah isaga oo soo bandhigay karti iyo adkaysi aan caadi ahayn. lambarka labaad William Saliba. William Saliba waa ciyaaryahan xirfadle ah oo Faransiis ah oo u ciyaara difaaca dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka qaranka Faranse. waxa uu soo bandhigay xirfado gaar ah. safarka Saliba waxaa ka mid ahaa amaahda lagu guuleystay iyo bandhigyo badan oo aan la taaban karin isagoo si weyn uga qayb qaatay guusha kooxdiisa. lambarka saddexaad Kyle Walker. Walker waa xirfadle kubadda cagta Ingiriis ah oo ka ciyaara difaaca midig ee kooxda Manchester City iyo xulka qaranka England. wuxuu dhashay sanadkii 1990. Walker waxaa loo arkaa mid ka mid ah difaacyada ugu fiican jiilkiisa oo ku caan ah orodkiisa iyo xirfadiisa. waxa uu mustaqbalkiisa ka bilaabay kooxda Sheffield United kadibna waxa uu dhaqaaqay kooxda Tottenham Hotspur ka hor inta uusan ku biirin kooxda Manchester City sanadkii 2017. Walker ayaa wax weyn ku soo kordhiyay kooxdiisa oo ay ku jiraan ku guuleysiga koob badan oo Premier League ah iyo Champions League. qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ayuu ku mutaystay aqoonsi iyo abaalmarino badan taas oo xoojisay maqaamkiisa difaac ee ugu sareeya kubadda cagta. nambarka afaraad Ronald Araujo. Ronald Araujo waa xirfadle kubadda cagta ah oo tayo sare leh kaasoo si fiican uga dhex muuqda difaaca dhexe ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Uruguay oo lagu yaqaanay awoodiisa difaac iyo karti badan. Araujo waxa uu wax badan ku soo kordhiyay kooxdiisa Barcelona isaga oo soo bandhigay xirfado gaar ah oo uu ku kasbado aqoonsi iyo waxqabadkiisa. safarkiisa Rennes ilaa Barcelona ayaa muujinaya kobiciisa iyo saameynta uu ku leeyahay kubadda cagta isagoo adkeynaya booskiisa mid ka mid ah difaacyada ugu wanaagsan kubadda cagta. nambarka shanaad Miji van de Ven. Miji van de Ven waa xirfadle kubadda cagta ah oo dhashay Abriil 19 sanadkii 2001. waxa uu ciyaaraa difaaca dhexe ee kooxda Premier League ee Tottenham Hotspur iyo xulka qaranka Netherlands. Van de Ven waxa uu xirfadiisa ciyaareed ka soo bilaabay kooxda Volendam isagoo u saftay kooxdiisii ugu horeysay iyo kabtanka kooxda intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee si buuxda uga ciyaaro sanadkii 2021. waxa uu u wareegay kooxda Jarmalka ee Wolfsburg halkaas oo uu ciyaaray dhammaan kulamadii kooxdu ay ciyaartay marka laga reebo hal kulan oo la diiwaan gelinayay. wuxuu noqday difaaca ugu xawaaraha sareeya Bundesliga. bishii August sanadkii 2023 Van de Ven ayaa wuxuu Tottenham ugu wareegay heshiis ku kacay 50 milyan oo 6 sano ah. waxa uu kulankiisa ugu horeeyay u saftay xulka qaranka sare ee Netherlands bishii October sanadkii 2023 markaas oo ay ciyaareen Faransa.